soo kordhay wadashada dabiiciga ah ee wadadku keenay marka halkii dad iska dhaxli lahaayeen ee aqoonyahan iska dhaxli lahaayeen waxay u egtahay inuu dooxi dhaxlayo waxa weeye dugsiga qadiimiga ahaa ee qalax ama timcade marka gurmad bin dhinac walba ah ayaa badbaadin kara dooxa sida la socda iyo waxa weeyaan dhismahan iskuulka iyo intaba deegaanka ilaalintiisii iyaga laftooda gacan baa looga fadhiya wasaaradda laftooda gacan baa looga fadhiya golihii deegaanka gacan baa looga fadhiya badan oo aynu u kacnay halis kamida halisaha ka jira gobolka Gabiley oo ah helis deegaan dib badanna ku haysa iskuulka qalax oo ah iskuul soo jireena oo taariikh weyn leh runtii gabiyankan aynu maanta isugu nimi wuxuu ka mid yahay mashaariicaha iskaashiga u baahan mashaariicaha runtii baylahda ka jirta gobolka Gabiley khaasatan degmada Gabiley waa mashaariico aan ugu talagalnay dawlad hoosaan inaanu fulino iyo qaar aynu u baahanahay inaynu bulsho ahaan iskaga kaashano mashruucan aynu gabiyanka ugu sameeyno dooxan qalax wuxuu ka mid yahay mashaariicaha u baahan in bulshadu iska kaashato bulshada ganacsatadeeda maanta kullay aan doonayaa in aan u sheego daneeyayaasha waxbarashada guud ahaan gaar ahaan ganacsatada gobolka Gabiley in aad ogtihiin dugsiga qalax taariikhda waxbarasho ee uu ku leeyahay gobolka oo taariikh soo jirtay muddo nus qarni ka badan oo ay ka baxeen dad badan oo magac leh waxa weeyaan dugsigaasi dhibaatooyinka haysta waxa ugu weyn dooxa oo maalin sanad kasta gooya ugu yaraan 3 mitir amba 4 mitir sanad walba gooya oo ku sii socda dhulkii dhismaha iyo dugsigu lahaa waana meel danguuda waa halka kaliya ee daayno hayna caruurteena future-ka oo la doonayo in wax walba looga dhibaatadaasi jirta ayaa maanta waxa markaa hawshaasi u gacan qaaday gobolka Gabiley guud ahaan gaar ahaan ganacsatada oo hawshii ugu horeysay ka qabatay waxaan ku boorinaynaa in ay hawshaasi aan loo kala tagin oo waxa weeyaan laga wada qayb qaato ganacsata ahaan annaguna iskuul ahaan qasab ay nagu tahay in aan roolka yaga ka ciyaaro tiyo kulley ay tahay iskuulka waxa soo galaya waxa dana waalidka laga soo qaadayo oo waalidku hadana hawshii ay hawsh ku noqonayso kolka waxaan ku boorinayaa dhammaan dadka daneeya waxbarashada guud ahaan khaasatan waalidiinta iyo ganacsatada iyo dadka magaranaysa shirkadaha iyo cid kasta oo markaa danaynaysa in aan hawsha loo kala tagin oo waxa weeyaan si wanaagsan wax looga qabto oo sanadka maanta aanay dhicin in ugu yaraan 4 mitir oo kale naga go'aan tiyo aad ogtiin ciliga dhulku sii galayo waana salaamantiin taasi ayaan cid kasta
kaasoo ahaa meeshii ay nooga soo baxayeen midhihii dalka anfacay gobolkeena Gabiley khaasatan oo halis adag ku hayay dooxa ku socda gidaarka iskuulka gabiga duminaya gidaarka iskuulka taasoo nin kastoo ka baxay oo u taagnaa waqti kasta haatay iminkana uu soo gaaray halis adag oo u dhawaatay inuu iskuulku noqdo muddo yar ka bacdi meel dunto oo ciidabaxba ku anfacsan dhulkiisina uu dhamaado hawsha oo in badan baa qorsheega lagu jiray alxamdulillah waqtigii ay suurto galiyay bay dhaqaaqday iminka ayaa la bilaabay waxa la dhigay oo maanta yaala oo ku dhaqaaqay ururkii Samakaal inay wax ka qabtaan gabyankaasi 140 luug oo dhagaxa iyo 140 gabyana ayaa hadda yaala oo lacagtoodu lagu ku salaysan tahay halkii luug oo dhagaxa $15 halka gabyanka oo 25 gacantii oo 20 $70 ay isku imanayso midhiiba iminka inta Samakaal filisayna waxa weeyaan 140 luug oo dhagaxa 140 gabyana lacagtaasoo $19,600 dhiganta 200 luug oo dhagaxa 200 gabyana iyo gacantoodii intaasaa maanta ka dhiman oo ay weliba sabadii waxa saarsan tahay xilligii roobkuna wuxuu nagu soo hayaa fooda waxaan kolkaa halkan u marinayaa gudo iyo dibadba dadkii halkaa ka baxay iyo kuwa danaynaya Somaliland ba u dhashay dhamaantood gaar ahaan dadkii gobolka Gabiley ka soo jeeday khaasatan inay u soo damqadaan oo ay u soo gurmadaan halka ogaasi maanta halista adag ay kaga socoto warshadoodii wax soo saarka waxbarashada oo dhibaato adag sanka ku haysa maadaama la bilaabay waxa ay noo wanaagsanayeen qabyo kaga tagina meeshii oo dhameystiran aynu ka tagno in hawshana dhameysano nabarkaasina ku aan ka bogsano oo noqdo fariintaas aan idin soo gudbinayaa dhammaantiinba waana iskuulkana waa iskuulkii waxa la bilaabay dhismihiisa 750 dhammaadkiisana wuxuu 850 dhammaan 2 sanadood ayuu iskuulkaasi socday dhiskiisu waxaan u ahaa boodhan buu ahaa dugsi dhaxub ahaa oo boodhana runtii dad badan oo maanta meel walba joogo ku dhintay iyo ku noolba ayaa dugsiga ka bartay oo ka baxay khasaarna lagama joogo maantana intii in leegiyo laba laabkeeda maanta dadkii maaha dadkii intii uu ka batay 5 goor waa 10 laab uu yahay marka waxa loo baahan yahay in dadweynaha reer Gabiley hadduu dibad joogay iyo hadduu guda joogaba in iskuulka dooxa laga qabto oo wax laga qabto hawl xoog leh ka socoto runtii waxaana wanaagsan in xaalku ku maray la isaga wado waxa weeye wuxuu marayaa imika xaafku marayaa usbuuca la eego intii u badnayd baa hadhay $85,000 baa ku baxaya halka waxa lagu bilaabay waa moraal iyo xukuumadda waxaan leenahay ka soo qayb gasho war aynu gurmano lahayd isku
waxa kaloo aanu halkan dhambaal uga diraynaa cid wal oo waxa weeye halkan maanta taariikhda ku lahayd oo iskuul ka soo dhigatay oo arday ka soo noqotay adoo leeydi iskuulka yaa gurmanaya koo waxa noqon doona baan golaha deegaanka maanta waxa hormad loogu maxamed amiin oo maayar reegiya dhammaan golihii deegaanku gacmays haystaan hawshaa way ka gurmanayaan way ka culus tahay laakiin iska daarta ka soo qayb galay xitaa nin ceel jaalle kaga qayb galay halkan inuu ka qayb qaato la doonayo inuu qof walba ka qayb qaato qaadaya waxaan leeyahay annagoo aad u qaylinayna walaalaha iyaga qurbaha jooga iyo horteena ku dhamaada way nagu ceeb gobolka Gabiley dad weeyo ku yaala iskuulka qalax waxay wadakaysan oo gibigan dad baa sidan u galay marka waxa loogu talagalay in difaac dadkan laga qabto oo loo sameeyo gabyan annaguna waxaan ahayn qoladii shaqada qaadatay ee fulinaysay ee gacanta ka shaqeynayay insha Allah sababta sidaan u wadnaa waxa weeye power baan u sameeynay waxaan doonaynaa inaan waxaan ka shaqeynay insha Allah inaan wax dhaqaaqa yeelan shaqada cidda soo maalgelisay ee bixisana waa qulayeen waxa weeyaan Gabiley oo ay xaflada la yiraahdo marka la yiraahdo samakaal ee samafalka ay mutadawwiciinta isku tagaya ayaa hawshan fulinaya iyo xukuumadda oo istaageersan Inside.